awoodda waa wax walba oo ku saabsan awoodda. Awooddu waa karti wax qabasho ama awood waxqabad. Adigu waxaad ku jirtaa xaalad awood leh ama aan awood lahayn. Ogaanshuhu waa awood. Inta aad leedahay ogaansho kasta oo noloshaada ah, waxaad leedahay awood dhammaystiran. Fahamku waa furaha xalinta dhibaatooyinka oo dhan. Fahmitaanka dhibaatada ayaa baabi'isa dhibaatada. Ogaalku waa awood, maxaa yeelay wuxuu ku siinayaa wacyigelin ikhtiyaar ah. Xulashadu waa khiyaali marka ay abuuraan kuwa gacanta ku haya kuwa aan ahayn. Si aad u maamusho waa inaad ogaataa, waa inaad fahamtaa sida wax u socdaan. Shaqee oo ogow waxa socda. Waxaad u baahan tahay wacyigelin si aad u samayso xulasho miir leh. Ogaalku waa tillaabada koowaad. Tillaabada labaad waa isbeddelka. Waa inaad fahamto waxa aad damacsan tahay inaad beddesho iyo sababaha ka dambeeya. Aqoontu waxay keentaa wacyigelin. Marka aqoontu waa awood. Noloshoo dhan waa waayo-aragnimo. Noloshoo dhan waa waayo-aragnimo. Waxbaro si aad u noqoto waxaad noqon karto oo dhan. Cabsida waxaa ka soo horjeeda waa dareen awood. Cabsidu waa dareen la'aan. Markaad dareento awood, macnaheedu waxay tahay cabsi la'aan. Cabsidu waa xoog la saadaalin karo oo inaga baxsan. Haddii aad aaminsan tahay in aadan wax awood u lahayn, waxaad noqonaysaa inaad ka cabsato inay waxyeello kuu geysan karto. Shaki ma leh, rumaynta awoodaheenna aan ku abuuri karno natiijo laga doonayo xaalad. Dhammaanteed waxay ku xiran tahay aaminaad ama caqiido ku salaysan wacyiga ama jaahilnimada. Marka la eego aragtida abuurista dhabta ah, cabsida iyo shakigu waxay noqon karaan laba ka mid ah saaxiibadaada ugu wanaagsan. Markaad dareento cabsi ama awood la'aan ama shaki ku saabsan natiijo xaalad, waxaad tidhaahdaa halkani waa meel kale oo aan dib ugu soo celin karo awooddayda. Cabsida iyo shakiga ayaa ah waxa kaa hor istaagaya inaad gaarto yoolkaaga. Calaamadee meel kasta oo noloshaada oo aadan aaminsanayn awooddaada. Waxaa nagu dhex jirta awood cajiib ah oo dhaxalgal ah. Mana jirto sabab ku filan oo loo dareemo cabsi marka laga reebo mooyee jaahilnimadeenna. Khaladaadka oo dhan waa khaladaad jaahilnimo ah. Helitaanka aqoonta iyo awoodda ayaa ah waxa go'aamiya koritaanka iyo isbeddelka. Ogaanshaha iyo muujinta aqoonta ayaa ah waxa awoodda leh. Awooddani waa mid ruuxi ah. Awoodda iyo xooggan ruuxiga ah waa xoog ku taagan wax walba. Qalbigu waa nafta. Marka ninku joojiyo inuu ku sii gudbo fikirkiisa iyo hamigiisa, ciidamadiisu isla markiiba waxay bilaabaan nabaad guur. Wejigiisuna wuxuu si tartiib tartiib ah u diiwaangeliyaa xaaladaha isbeddelaya. Qof kasta oo leh awood uu ku fikiro wuxuu leeyahay awood uu kaga adkaado jahliga iyo xumaanta. Waxaan u nugulnahay inaan xumaanta samayno, waana casharo waayo-aragnimo ah. Ujeeddada xanuunku waa inayna yeesho garwaaqsi jaahilnimadeenna. Waxaad ka fakari kartaa wax walba, waxaadna soo saari kartaa aqoontaada oo dhan sida ugu dhaqsiyaha badan uguna macquulsan. Maskaxda dadka, fikradaha iyo midaynta aqoonta iyo taada ayaa ah habka ugu wanaagsan ee loo maro. Waa habka ugu dhaqsaha badan uguna suurtagalsan sida awood lagu helo. Sirta awoodda, xoogga ugu weyn adduunka oo dhan waa awoodda maskaxda. Maskaxda ayaa ah midda wax walba maamusha. Ka fakir awood, waxaad muujisaa awood. Sirta awooddu waa miirka awoodda. Awoodda oo dhani waxay ka timaadaa gudaha. Gebi ahaan waxay ku jirtaa gacantaada. Awood la'aan ayaa jiri karta. Wax kasta oo wax la'aan ah waxay ka dhex dhacaan maskaxda dhexdeeda. Xaqiiqada oo dhan waa maskaxdaada. Sixirku waa rumaynta. Rumaysigu waa awood. Ciyaarta oo dhani waa ciyaar gudaha ah. Xukunka oo dhami waa isxakamayn. Markaad gacanta ku hayso adduunkaaga gudaha, waxaad ku jirtaa xakamayn adduunkaaga dibadda.